barnaamijka inteynaan u gudbin taariikhdu waa 3 bisha Oktoobar sanadka 2025 barnaamijka waxaanu idinkugu haynaa oo aan halkan idinkugu soo gudbin doonaa dagaalo mar kale maanta oo Jimcaha ka dhacay Gaza xaaladda oo ciidanka Israa'iiliyiinta ku xun sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan bin Gvir oo booqday halkii lagu hayay dadkii la qabtay ee la socday doomaha waxaa la sheegay inuu halkaasi ka sheegay hadallo aan loo riyaaqin oo aad u foolxun sida wararku ay sheegayaan Israa'iil oo bilowday durbaba inay masaafuriso dadkii ay qabatay qaar ka mid ah qaybaha dambana waxaan idinkugu hayaa Turkiga oo dalkiisa ku qabtay nin la sheegay in uu la shaqeynayay sirdoonka Israa'iil ee la yiraahdo Mossad torow muxuu ku howlanaa oo uu qabanayay qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaza xaaladeedu waa sideedii nimankii Israa'iiliyiinta ahaa waxay ku wadaan duqeymo xataa maanta waxay ku soo weerareen oo ay ku duqeeyeen sida la sheegay mar kale maraakiibtooda dagaalka ayaa Gaza soo duqeysay waxay soo kale maanta dib u soo celiyeen oo ay dhowr mar ku qarxiyeen gawaaridii gaashaana ee iyagu ay hogaaminayeen ee rumuudka ahaa shalay waa tii aan halkan ka sheegnay inay diyaarado ku soo qaadeen sanduuqyo qarxaya diyaaradaha droonka oo ay ku sii daynayeen meelaha Gaza intaas iyagoo hawshoodu tahay ayay haddana qaati billaahi waxay ka joogaan markii wax yar jaanis lagu helo ay soo dhaqaaqaan banagta laga saaraya waa tii ilaa shalay meelihii ay joogeen hoobiyaal lala dhacayay oo la weeraray waa midan barnaamijkaygii saakay aan ku soo gudbinay in Netanyahu uu codsaday inuu la shiro taliyaasha ciidamada si uu bal war uga dhageysto Gaza war fiican kama maqluuyin in la qabtaan isku ogeen oo la soo afjaro maxaa dhacay cabaadkiina baxaya askara la dubay taangiya la dubtay maxay tahay marka nimanka inaan la kulmaa rabaa marka sheekadu marka halkaasu maraya marka waa kulul yahay haddaba marka maanta oo Jimcaha Al Jazeera waxay qoraysaa jabhadda la yiraahdo Saraya al-Qudus ayaa waxay soo bandhigtay video ay ku muujinayso habka ay u qarxinayaan mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidanka Israa'iil ay leeyihiin kaasoo ku sugnaa dhanka waqooyi ee Gaza jabhadda la yiraahdo Saraya al-Qudus garabka militariga xarakada Jihaadul Islaami ayaa maanta Jimcaha waxay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya qaabka ay u gubeen qaar ka mid ah gawaaridii gaashaanay ee ciidanka Israa'iiliyiinta waxaana la sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Xay Sheikh Ridwan kaasoo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada Gaza Saraya al-Qudus waxay dhanka kale sheegaysaa iyadoo soo dhigtay bogooda Telegramka in gawaarida gaashaaman ee ciidanka Israa'iiliyiinta ay la beegsadeen miinooyin dhulka lagu xabaalay iyo sidoo kale gantaalaha garabka laga gano kuwaasoo ay sheegeen inay la dhiceen baabuurtii iyo gawaaridii gaashaana ee ciidanka Israa'iil ee soo galay deegaanka la yiraahdo Sheikh Ridwan dhanka kale waxay sheegeen dagaalyahanadoodu inay markaasi u xabaaleen oo qaybo kala duwan oo wadooyinka u dhigeen miinooyin kuwaasoo ay sheegeen in markaa qaybo ka mid ah ay ku qarxiyeen gawaaridii halkaas soo galay marka nimankan marka sidaas waay markay soo dhaqaaqaan oo ay soo galaan saasaa nagta looga saaraya maalmahan waxay leeyihiin marka dadka khubarada ah ma maqasheen gabgabtii waa qabsanaynaa Gaza wax yaraa noo dhiman halkaasaan ka galnay warkoodii ma maqasheen leeyihiin may inta yahuudu aamusan tahay wax ka faan jecel male tallaabo hadday qaadaan way faani lahaayeen waxa nagta lagu hayo maalmahan waa ayakii leeyihiin marka kullay xaaladda Gaza wararkaas ayaa ka soo kordhay wixii kaloo soo kordhay hadii Allah idmo barnaamijyada dambe ayaan idinku la socodsiinayaa qodobka kale ee barnaamijka galabta aan idinku hayo dad 400 ka badan ayaa la soo qabtay iyo doomihii ku socday Gaza kulligood waa la soo qabtay waxa la isugu geeyay meel la yiraahdo Ashdod oo dekada halkaas dadkii la geeyay ninkii marka bin Gvir ahaa inta dadkii u tagay ayuu ku isfooteynaya kuwan maxaa ka yeelna waa argagixis u leeyahay dadkii nabadda u ololeynayay oo gargaarka u waday Gaza
oo lagu tacadiyay oo adduunka dhan ka qaylinayo oo dawlado kala duwan isugu jira ayuu inta kortagu wax leeyahay waa argagixis kuwan waa saan markaas oo caytamaya dushooda inta tagay haddaba marka aan tuso telefishinka Al Jazeera wararkii ay ka qortay bin Ghafiir ayaa waxaa la sheegay dadkii la haystay ee la socday dooniyihii Ustuulu Sumuud inuu ku tilmaamay inay yihiin dad argagixis ah inuu ku tilmaamay haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay warbaahinta Israa'iil ayaa bafaafisay inuu tagay wasiirka amniga Israa'iil Itamar bin Ghafiir dekada la yiraahdo Usduud halkaasoo ay joogaan boqolaal dadkii la socday doomaha halka ay ku sugan yihiin waxaana uu sheegay iyagoo fadhiya ayuu ka dul qaylinayay wuxuuna ku hadlayay hadallo aan wanaagsanayn isagoo sheegaya inay yihiin kuwaasu dad argagixiso ah oo u yimid Israa'iil inay taageeraan koox argagixiso ah sida uu yiri marka ninka marka warkiisu waa cad yahay waa nin marka noocaasa oo marka isaga qayliya wuxuu rabo iska sheega dadkii marka halka lagu soo qabtay ayuu marka ka dul hadlaya waa argagixisatiin uu leeyahay sababtoo ah argagixisa taageeradeeda u socotay marka hawshaas halkaas maray dhanka kale Israa'iil waxa ay hore u sheegtay barnaamijkeedii saakan ku soo qaatay inay dhammaan doomihii oo dhan qabatay dadkii saarnaana ay hayso waxayna maanta bilowday qaar ka mid ah dadkaas inay masaafuriso oo dalalkii ay ka yimaadeen ay dib ugu celiso haddaba marka aan tuso goordhow war ay qortay jirada leeyahay Al-Quds waxay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa xaqiijisay in la tarxiilay 4 Talyaani ah oo la socday doomaha leeyahay Ustuulu Sumuud haddaba wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil maanta Jimcaha waxay sheegtay 4taasi Talyaaniga ah in marka halka lagu qabtay oo halka la sheegay in lagu xiray oo kadibna dalkoodii loo masaafurinayo marka waa kaas hawshaas marka halkaas ay maraysaa xaaladuna heerkaas ay maraysaa marka nimanka dadka kale la hayana iyaguna inay masaafurinayaan qaar ka mid ah dadka durbaba waxay sheegeen inay cunadii diideen oo ay ka soomeen oo marka ay xanaaqsan yihiin dhanka kale doontii iyaduna abdamiir la leeyahay oo 9 ilaa 10 doonyooda ayaa iyaguna ku soo wajahan oo markala soo socda oo Greega hadda ku suganaa la leeyahay marka xaaladdu halkaas ay maraysaa qadar xayisiisa kadib Turkiga oo sheegay inay qabteen oo ay gacanta ku dhigeen muwaadin marka la sheegay nin u shaqeynayay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka galabta haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa Turkida ayaa sheegeen inay qabteen nin u shaqeynayay hay'adda sirdoonka Israa'iil haddaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu sirdoonka Turkigu waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku dhigeen oo ay qabteen nin camiil ah oo u shaqeynayay hay'adda Mossad Israa'iil waxayna ku qabteen magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga haddaba warbixintu way sii socotay hay-adaha amniga Turkiga ayaa aroortii saakay oo Jimco ahayd waxay gacanta ku dhigeen nin magaciisa loogu yeeray Sarkaan Tashik kaasoo la sheegay inuu la shaqeynayay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad haddaba warbixin ay heshay wakaaladda wararka Anadolu waxay ku ogaatay in ninkan uu hawl ka hayay gudaha iyadoo markaa hawshaasina ay soo ogaadeen oo iska kaashadeen hay-adaha sirdoonka iyo maamulka ammaanka magaalada Istanbul sidaas ayaa gacanta loogu dhigay ninkan waxaa la sheegay in la shaqaalaysiiyay uu aqbalay kadibna shaqadiisu ay ahayd inuu daba dhigto uu la shaqeeyo oo markaa uu baaritaan iyo basaasnimo ku sameeyo dad Falastiiniyiin ah oo markaa iyagu ku sugan bariga dhexe sida la sheegay marka maanta oo dhan waa la iscaysanaya Turki iyo Mossad iyo waxa kan iyo maanta oo dhan iyo Falastiiniyiin aysanayna ku jiraan xaaladdu marka halkaas ay baray barnaamijkii galabta waa dhageyta asxaabay la gareeyo oo shir gareeyo meel kasta aad joogtaan subscribe ka iloobidina mar kale waxaan idin leeyahay Jimco wanaagsan nabadgelyo